السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshadeennu waxa ay leedahay dad badan oo jilicsan oo u baahan in la caawiyo la gargaaro. Dadka maqalka naafada ka ah waxay ka mid yihiin dadkaas. Meelaha isbitaalada ah, iskuulada, goobaha shaqooyinka, meelaha basaska laga raaco, hoteelada iyo xataa airportada. Badankoodu ma joogaan dad garanaya gacanta marka wax laga tilmaamo sign language-ka lagula hadlo dadka maqalka naafada ka ah. Taasi waxay keentaa in dad badan oo maqalka naafada ka ah ay dhibaatooyin badan la kulmaan. Waxaan xasuustaa sheeko ay inan u ololeysa dadkaas nooga sheekeysay oo ahayd in inan dhalinyaro ah oo maqalka naafada ka ah uu isbitaal tagay dabadeedna markii dhakhtarkii iyo isaga isfahmi waayeen dawo la isaga qoray dawadii uu cunayna uu u dhintay. Adiga mas'uuliyad baa ku saaran inaad baratid sign language-ka ama sida dadkaas lagula hadlo. Iyagana waxay helayaan inay dadka soo dhex galaan, adiguna waxaad noqonaysaa qof wax caawiya. Si gaar ah waxaan rabaa inaan fariinta ugu diro ardayda barata social work. Mahadsanid.